dhaqankii nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshaynu ka warrannaaba meesha kale ka qurux badan iithaarka iyo siduu wax u bixinayey maalan iyo ixsaankuu samaynayey almiqdaad ibn alaswad saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu yidhi aniga iyo laba ninoo kaloo ila socda ayaa nebiga soo waajahnay buu yidhi iyadoo gaajo daraaddeed aanan dhagaa wax ka maqlayn buu yidhi yacni cahdu saxaaba ee koowaad waa soo qaxeen waa soo hijroodeen xoole iyo wixii haysteen oo dhan waa lagala hadhay magaalada madiino yar bay yimaadeen ahlu safa dad badan baa masaajidka nebiga iska joogay aan waxba haysanin dabeetana almiqdaad ibnu aswad wuxuu leeyahay aniga iyo laba nin oo kale annagoo gaajo daraaddeed dahabad asmaacunaa buu yihi wa absaarunaa min aljahd dhagahana wax ka maqlinin dhaana wax badan ka arkaynin ayuu nebiga isu soo bandhignay buu yidhi haddana baryadana waa ka xishoonayeen iyagoo caynkaasiya cid waxna siisana maanan helin buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam baa yidhi buu yidhi warbalayna keena saddexdiiba wuu kaxeeyey laakiin muxuu nebigu haystaaye u siinaya gurigiisa waxaa jooga 3 neef oo riya ah 3 neef oo riyaa buu yidhi hala liso waa 3daasaa guriga jooga buu yidhi intaasaynu wada cabbaynaaye inoo qaybiya wuxuu yidhi waanu nimaadnaa waa lisnaa dabeetana 3dayadu inin baanu cabnaa in yarna nebigaanu meel u dhignaa marka uu nebigu yimaado calayhi salaatu wasalaam ayuu salaanaan ka hurdana toosinayn ka soo jeedaana maqlaya buuna salaamaa intuu masaajidka soo galo tukado ayuu salaantaana salaamaa buu yidhi dabeetana waxaanu soo qaadnaa intii yarayd aanu isaga u dhigno intii baanu siinaa maalintii dambe ayuunbaa shaydaanku ii sheekeeyo waxaan idhi buu yidhi war nebi maxamed mala isagu kolley meelaha waxbuu ka soo helayaaye intaan soo kacay ayaan intiisi yaraydna ka laacay buu yidhi intii yarayd aan nebiga u dhigi jirnay waan soo kacay buu yidhi xadiis saxiix muslimku ku yaalla intii yaraydna waan cabbay buu yidhi markaan haddana cabbay ayuu shaydaan haddana i warwargeliyo wuxuu yidhi buu yidhi way bal waxaad samaysay intii yaraydee nebi maxamed baad cabtay maantuu ku habaari doona ee ahlunaarkaad ku biiraysaa ayaan haddana isidhi buu yidhi anigoo warwarsan aakhiriya adduunba beeshay baan sidhi buu yidhi intaa yara caani dabeetana waan soo kacay buu yidhi intaan shamladayda yareed soo qaatay marada yaraan sita buu yidhi haddaan xagga sare saarana caga ay muuqanaya haddaan xagga hoosana xagga sare ay muuqanaysa hurdaa iga soo degi weyday buu marada yareed baan isleeyahay huwa buu leeyo kolla madaxaan ku duuduubaa kolla cagahan geliya xagga sare ay qaawamaa yacni xataa wuxuu wado ma haysto hurdaba way iga soo dhici weyday buu yidhi markaan cabbaar galgashay ee hurda iga iman weyday ayaan waxaan isku dayey buu yidhi inaan talo kala keeno waxaan sidhi buu yidhi war nebigii hadduu sidan ku yimaado oo gaajoodo oo ku habaaro ilaan liibaani mayside waxaan isku dayey buu yidhi inaan kaco oo muxuu samaynayaa marka kan middi baan soo qaatay buu yidhi dabeetana waxaan sidhi buu yidhi de haata nebigu yuu kugu gaajoone 3 mid qaloo nebiga u qala neefafkii yararaaye meesha joogay ayuu soo kacay markii aan imi ayuun baan arkay buu yidhi haddana neefkiiyo durbaba xigsimooday oo caana ku jiraan dabeetana waan lisay buu yidhi siriyihiiba haddana dib bay u darareen waan lisay buu yidhi xoorkaa ka soo duulay dabeetana waan soo qaadoo nebigaan u keenay buu yidhi nebigiiba wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam asharibtum sharaabakum alleyla caanadee badan buu arkaa war caawa miyadan intiinii cabbin markaasaan idhi buu yidhi maya cabna ilaahay rasuulkiisiyo yaa rasuul allahi ishrab adigu cab baan idhi buu yidhi markaasuu cabbay dabeetana wuu ii dhiibay buu yidhi markaasaan idhi buu yidhi yaa rasuul allahi ishrab cab ishrab markaasuu cabbay markaasuu ii dhiibay markaasaan idhi buu yidhi cab ilaahay rasuulkiisiyo
markii uu nebigu cabbay oo aan gartay buu yidhi inuu si fiican u cabbay oo markii hore weelku madhnaana nebigu uu duceeyo wuxuu yidhi allaahuma asqi man saqaana waaطcim man aطcamana buu ku duceeyey buu yidhi markii aan waxba ooline uu nebigu weelkii waxba ka waayey yaraa markaasaan qoslay buu yidhi oo dabeetana qosol baan la dhacay markaasuu wuxuu nebigu igu yidhi buu yidhi ixdaa sawaatika yaa miqdaad xumahaaga mid ka mida weeyaan maxaad samaysay buu igu yidhi buu yidhi waxaan u sheegay qisadii baan u sheegay buu yidhi wartani waa naxariis xagga ilaahay ka timiye maad qolada kalena kicisid buu yidhi haynala cabbaane ilaahay rasuulkiisiyo haddaynu labadeennu cabnay cidna dankama lihi buu yidhi waxay tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sida uu ixsaanka u samaynaya ama ugu naxariis badnaa saxaabadiisa waxaynu odhan karnaa dhaqankii nebiga meel kasta aynu sheegno hadduu hadlayo hadal degan oo qof kasta oo dhegaystaa uu tirin karo qaybi karo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku hadlayay dad waaweyn iyo dad yaryarba si fiican buu ula dhaqmay caruurta hadduu soo maro sida saxiixeynka ku qoran caruur cayaaraysa hadduu soo maro nebigu wuu salaami jiray calayhi salaatu wasalaam siduu u naxariisanayo salaadda isagoo ku jira ilmo yaroo ooyaya hadduu maqlo salaaddu u dadejin jiray si aan hooyadaasi u warwarin hooyadii ilmahaa dhashay si aanay uga warwarin ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda ugu dadejinayay